waa soo dadaashay, waa soo korisay. kusii furayna fooda la inuu jiro la qalqaale maya u ooyi karaan adna waad xanaaq. We come from a third world country. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawaada channelkeena kobcinta garaadka carruurta walaashii Raxmo Xuseen. Maanta waxaan noo hayaa waalidiinta iyo la dhaqanka carruurta, 3 nooc oo waalidiinta ay u kala baxaan carruurtooda ku edbiyaan. Waalidka koowaad haddaan u degdego adna waxaan kaa rabaa haddaa waalid tahay waalidkee ad u maleysaa inaad tahay ama waalidkee jeclaan lahayd inaad tahay. Marka videoga dhammaan insha Allah iisoo sheeg haddii xataa waalid ahaan waalidkee jeclaan lahayd insha Allah. Waalid koowaad xaafadiisa ama macalinka xataa wuu ku jiraa. Macalinka ama waalidka koowaad ruulal badan uu leeyahay, ruulal badan iyo sharciyaal badan oo la u dagsan, laakiin carruurta uma sharax la'aan wayna ku sharax la'aan wayna ku qasbiyihiin inay raacaan. Laakiin marmar cunuga markuu is oysiyo ama mardaba mu laabanayo ama mar ooyo ama barbaryo waalidkaas ruulkaas wuu haddana ku soo har cunug hadduu qalad gala ama wax yar ama wax weyn isla markii baashiisa diyaar waa wuu edbin meel uu saaraya. Laakiin ma u sharaxayo sabab sharax la'aan ma jirto. Amarkeyga anaa dhahay anaa waalidka qala waalidku ku sii waalidka labaad wax sharci oo u dagsan ma laha, wax ruul oo u dagsan ma laha. Gurigaas waa laga soo kacaa sida maalintaas lagu wada dhaqmi kara lagu wada dhaqmaa, habeenkiina meesha laga sii bilaabaa la sii saaxdaa. Waalidkaas markaa waalidkii hore wuxuu aaminsanaa cunugaada markuu yar yahay cadaadi markuu weynaado wuxuu ku noqonayaa cunug wanaagsan, edeb leh, akhlaaq leh, waxbarasho fiican oo heer sare ku gaara. Waalidkan labaad wuxuu aaminsan yahay asaga cunugaada saaxiib la noqo, cadaadis ilmaha waxba ma u tarayaan, la saaxiib markay weynaadaan ii ka baranayo waxa wanaagsan iyo wixii xun ii ka bara doono. Laakiin hadda waxba ha cadaadinin, waxba ha dhibin, saaxiib la noqo. Wax hawshan adaa iskale iyo waxaan adaa iskale la dhahayo ma laha. Ma jeclo ilmaha in oo la cadaadi. Waalidka saddexaad wuxuu shaabahaa waalidka koowaad laakiin iskuma dhawo. Waalidka koowaad wuxuu lahaa ruul cunugiisana wuxuu ka rabaa 100% inuu noqdo wax walba meel walba dhan walba ku fiicnaan. Waalidkan saddexaad sidoo kale ruul uu leeyahay laakiin wuxuu ugu duwan yahay kii hore wax ma sharaxeen kan, laakiin kan uu u sharaxaa. sababta saa rabaa inaan saas u samaysiin waalidku u sharaxa mar walbana waalidkii hore ilmihiisa shaaka iyo wax ma ka dhaxeenin, laakiin waalidkan saddexaad mar walba ilmihiisa wala sheekaysanaya oo cunuga uu xushmeenaya, wuxuu tusaa inuu xushmad leeyahay, uu u sharaxaa sabab wuxuu tusaa cunugan inaad bilaadan aad tahay oo lagu xushmeena. Laakiin waalidkii number 1 sida oo cunuga hadduu qalad galo, hadduu maanta iska baryo ama maanta uu ooyo ama cunugii oo sameeyo wuu iska yeelayo, wuu isbedelayo soma. Laakiin waalidkan saddexaad sida ruulku u dagsan yahay saas baa lagu soconaya. wax hadduu cunuga ama baryo tooma ama wax iska bedelaan ama ooyo maya. Rule is rule oo ku taagnaanaya. Sharcigan waa wada dejisan, waa ku sharxay, waa ogaad ma jirto meeshiisu taagnaanaya. Caadi hoosh ay tahay waalidkan
oo wax dagaal iyo waxaas qajajac jirin waa caadi asna mar walba xanaaqi ma ku taagsano caadi ula sheekaysana sheekay farxadii waxa ka dhacayso laakiin markay imaado in oo cunugii qalad sameeyay markaas wuxuu la soo baxayaa qaybtii saaxiibnimada jaabka u gashanaya wuxuu la soo baxaa qaybtii edbinta iyo waalidnimadii iyo adeegi ayuu la soo baxaa oo ruulkeena waa raaceena wax alla wixii ahaataba wax alla wixii ahaydba way family ku heshiiyeen okay cunugii wuxuu leeyahay responsible waxyaabo uu go'an cunug kasta iyo age-kiisa iyo maxaa la cunug walba si nooc walba waa laakiin cunugaas wax lagu halayaa jiro waxaasna waa laga rabaa dadkan marna amaro bixiya marna maxaa la dhihi jiray waa la sheekaystaa laakiin wuxuu joogteeyaa mar kasta inuu ilmihiisa uu jecel yahay uu arko oo ilmihiisa jaceylka uu uga celceliyaa markasta ilmihiisa waa joogteyn oo jecel waan ku jeclahay oo joogteyn xataa markii oo dagaalka uu dhamaado wuu u sharaxay yacni sababtan kugu diiday waxaas oo sababta waxaas u yeelin sababtoo jecel adaan ku jeclahay waa saas waa marka jaceylka wuu ku celceliyaa saddexdooda inaa fahantaan marka video ku xiga haduu ilaa alla idmo oo qaybtiisa labaad waxaan kasoo dhigayaa waalidiintaas iyo saameynta insha Allah carruurtooda markay weynaadaan ay ku lahaa doonaan subscribe gareeya share gareeya like gareeya assalaamu calaykum